بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. والله الصومالي ميل جوجتان بإلهي سبحانه وتعالى كوان ما يلو عدي اللي بنبك الله كقادو عدي دن الله وفي انت باهن الله ديقو انت بكتا الله بكسيو انت اللي متى الله ونحرستو والدينتنا الله ونحرستان نغير الله نوغد ونحرستو dalka diinta dadka iyo dawladnimadaba ilaahay subxaanahu wa ta'aala inoo badbaadiyo. Waxaan ka hadlayaa caawa laba qodob. Qodobka koowaad markabka shidaalka Soomaaliya qodaya iyo heshiiska Turkigu inala galay kelmad baan ka oranayaa. Qodobka labaad fadhigii farmaajo iyo odayaashii labada ahaa maamul goboleedyada Deni iyo Madoobe ka dhacay hotel airport iyadana kelmad baan ka oranayaa. laakiin intaana gelin waxaan hadda ka hor ka baaqday xaflad lagu qabtay magaalada Calgary oo ay dhiganayeen dadka reer waqooyi bari oo lagu hambalyeynaya caleemasaarkii firdhiye iyo dawladdiisa. aniguna aan ku maqnaa xafladii qur'aanka oo Edmonton, marka time conflict baa dhacay. waxaa xalay la ii sameeyey casho iyo maamuus ay ii sameeyeen reer waqooyi bari. marka waan ka mahadcelinayaa, aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa. hadiyadana waa lay siiyey. waxaa ugu muhiimsanaa hadiyadda calankii Soomaaliya oo uu ku masawiran yahay, ay ku qoran tahay difaacaha calanka iyo midnimada Soomaaliya Sheekh Cabdi Xirsi. aad baan ugu farxay kelmaddaas, uguna faraxsanahay, waana ka mahadcelinayaa. hadalkii koobnaa oo ay yiraahdeenna halkan ka dhageysta. dhammaan ummadda Soomaaliyeed inta fariintan ay gaari doonto caawa waxaan joognaa munaasabad lagu shafeeyo Sheekh Cabdi Xirsi xafidahullah. jaaliyadda waqooyi bari ee Calgary Canada ayaa waxay guddoonsiinayaan xafladda ay caanka ku tahay jaaliyadda reer waqooyi bari ee sharfidda go'a shaalka ah, koofiyadda iyo wixii uu helin doono biidnillaahi kariim. waxaan rabnaa ummadda Soomaaliyeed inaan markhaati uga dhigno Sheekh Cabdi Xirsi inuu mudan yahay in la sharfo, in la karaameeyo. ilaahayna waxaan u weydiinaynaa subxaanahu wa tacaala inuu ciseeyo oo sharfo. halkaa waxaan uga jeednaa calanka Soomaaliya oo ay ku qoran tahay Guardian of the Flag and the United of Somalia. waa ilaaliyaha calanka iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed. ilaahay waxaan u weydiinaynaa caafimaad iyo cimri baraka leh. rabbi subxaanahu wa tacaala waxaan u weydiinaynaa inuu Soomaali u xifdiyo. ilaahay waxaan u weydiinaynaa inuu Soomaali noociisa u badiyo. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan u weydiinaynaa waddankeena juhdiga uu gelinayo iyo dadaalka uu ku bixinayo inuu miisaanka xasanaadka ugu daro. rabbina waxaan u weydiinaynaa cadowgiisa inuu jabiyo. waxaan uga mahadcelinaynaa hablaha reer waqooyi bari dhammaantood meel ay joogaanba astaantan qiimaha badan ay soo kordhiyeen. waxaan kaloo u mahadcelinaynaa dhammaan inta fideogana uu gaari doono oo aanu ku matalayno oo reer waqooyi bari oo Calgary iyo Canada degan. intaasaan kusoo gabagabeynaynaa. axsan allahu ilayka sheekh. sharaf iyo karaama ay tahay reer waqooyi bari. allah idin karaameeyo, jazakumullahu khayran. ducada allah inoo wada aqbalo, dalkeenana allah inoo wada badbaadiyo. laa shukra cala alwaajib. shaqaan xaq u lahaa baan qabsaday, wax gaara ma qaban, wax laygu bogaadiyana ma qaban. laakiin maadaama lay sharfay waxaan leeyahay akramakumullah dhammaantiin odayaal iyo gabdho iyo ragba sharaf iyo karaam. axsan allahu ilayk baarak allah. mar labaad aad baa u mahadsantihiin. qodobka koowaad waxaa wada fadhiistay farmaajo iyo Madoobe iyo Deni. waxaa laga wada hadlay oo la iska xog waraystay xaaladda uu dalku ku jiro. waxaan ogahay inay ka wada hadleen sidii la isaga dabqaadi lahaa labada oday iyo Villa Soomaaliya iyo mucaaradka iyo Villa Soomaaliya loo kala dabqaadi lahaa. waxaan rajaynaynaa positionka ay u soo bandhigeen farmaajo inuu ciyaaro oo ah inuu u kala dabqaado si looga baxo ismaandhaafka iyo hubanti la'aanta siyaasadeed in ay noqon doonto mid taariikhdu xusto
loona baahan yahay madaxweynihii horena wuu ku mahadsan yahay inuu groupkii shalay iyagoo wada jira isaga la dirirayay oo lahaa kursigaan ka ridaynaa inuu iyagii maanta iyo isagu dhexdhexaadinayo u kala dabqaadayo taariikhdu waa iska meerto waxbaa uun soo wareega waa madal iyo fadhi iyo taariikh ma garanaysaa mustaqbalka laga sheekayn doono waa ku bogaadinaya madaxweynihii hore inuu ciyaaro roolkaas duqnimada iyo ma garanaysaa xilkasnimada iyo odaynimada ku dhisan oo asal ahaan macnaheedoo dhan uu yahay xilkasnimo waa ku bogaadinayaa waxaan kaloo bogaadinayaa odayaasha labada dhinac oo iyaguna ishaya oo ogol haddana inay wada hadlaan waxaan maqlayaa madaxweynuhu inuu khasbayo aan arkayay wasiiru dowle soo qorayaa villada in la yimaado waa khasab cidna lama khasbi karo waa heshiis iyo negotiation nimanku qaar baad weerarto xabad la dhacday oo kuugu xukuman inay xiran yihiin oo lasoo qabto maxkamad aad ka soo saartay meelaad kaga noqotayna maana arag marka handadaad looma baahnee let's move on horey aan u soconno la fariiso odayaasha meel kastoo ka mid ah muqdishona still waa your jurisdiction waa magaalada aad ugu ahda xukuntid marka maxay kaga duwan tahay airport hotel iyo xalane maxay kaga duwan yihiin villa soomaaliya anigu sharafta iyo karaamada villa soomaaliyaan jeclaa laakiin farmaajo waa 24 cishuu la fadhiyey afisyooni tendhadeeda intaasoo maalmood lagu noqnoqonayay xilligii negotiationkii iyo ismariwaagii doorashadu u socday midii oo kale weeye muhiimaddu waa in la heshiiyo meesha lagu heshiiyey iyo fadhiga la fadhiyey iyo waxa la isyiri iyo macno ma leh inta la heshiiyo in hore loo socdo kadaa hagaldaacinta wadahadalka jooji dastuurka iyo waxa aad ku ordaysid jooji doorasho anigu aan wataa ii soconaysaa oo aad ka soo tuuraysay iyadoo dhagax ah Ethiopia jooji haddii ay daacad kaa tahay aad rabtid dalku inuu horey u socdo mandate-kaagii 3 bilood baa kaaga dhiman oo buuro ah that's it waa kuu sheegay marar badan baan kugu celceliyey xogtaan helayo parallel process dowlad baa lagu dhawaaqi doonaa shadow government oo xilka kaala wareegta oo ku meel gaar ah oo markaa iyagu ay doorashadii iskood u qabsadaan halka ha gaarsiin dalku yuu burburin gacantaada yaan lagu kala tegin kelmadda intaasan ka oranaya qodobka labaad waa war farxad leh markabkii shidaalka soomaaliya u qodi lahaa inuu soo laabto iyadoo seismic assessmentigii la sameeyey macnaha la akhriyey dhulkii la arkay calaamadihii loo baahnaa oo dhan oo batrool in laga helo muujinayay oo dhan inay joogaan haddana la raadinayo ceelkii sidii loo qodi lahaa iyo hawshiisii broseskii la bilaabayo waa arrin farxad leh waqti dheer buu qaadanayaa muddo dheer buu qaadanayaa hadda ka hor baan sheegnay markii la lahaa waxaa la soo saarayaa 2025 inaysan suurtagal ahayn way jirtaa ma garanaysaa awood xoog leh oo tiro badan oo ay leeyihiin maraakiibta casriga oo hadda ceelasha qoda oo ilaa 6 bilood 7 bilood inay kusoo afjari karaan furistii ceelka sismiga kadib way jirtaa laakiin kharashaad aad u tiro badan iyo waxay u baahan tahay hanti aad xoog badan anyway dadka dacayadeynaya heshiiska turkiga oo leh 95 iyo 5 inta badan waa team Israa'iil iyo team Yahuud iyo team Epstein waa la weydiiyey muxuu yahay la dad Soomaaliya joogay weydiiyey Epstein waa nin khariban oo jaajuus ahaa oo Mareykanka joogo Yahuud ahaa Mareykanna ah oo lacag aad u tiro badan inta loo dhiibay isagoo waxba baran macallin laga dhigay elite ah isagoo high school ka baxay baa macallin laga dhigay college elite ah markaas haddana oo macallin xisaabeed laga dhigay kadibna waxaa la arkay ninkii billionaire ah jasiirad buu iibsaday jasiiradaas marka waxaa lagu sameeyay blackmailing wax la yiraahdo dadkii baa waxa la gelinayaa kharibaad la gelinayaa markaas film laga duubaya dadkii oo idab darro sameynaya oo dambiye ku dhacaya waana dadka caalamka xukuma dadka iyaga ah oo marka faraha laga qabtay oo aad u tiro badan baa xilalka loo dhiibaya meel walba wadan kasta markaas waxa maamulanaya wadan kasta cidii iska lahayd fiidiyoyada oo ahayd Israa'iil baa maamulanaysa Mareykanka ilaa xilligii JFK bay ku wadeen ilaa hadda ay ku wadaan kan hadda fadhiya konton waxa 1 million times buu magaciisu ka soo baxay
iimayladii iyo waxyaabihii laga helay markii meeshii jasiiraddii laba jasiiradood oo kaamil ah buu iibsaday baa loo gaday marka mana aha nin lacag shaqaystay uu isagu leeyahay lacag u dhaxlayna maaha marka fadeexadaas oo xataa laleeyahay shaydaan baa lagu caabudaayo caruur baa la cunaa dad baa la cunaya oo kufsi iyo waxa waa laysla dhaafay cuntay maraysaa dadka in la cuno qaar dadka in bahala la siiyo oo shaak iyo libaxbadeed la cunsiiyo waxaasay maraysaa marka waa project noocaasa haddayda aadan fahmin ujeeddadu waa inta fadeexadaas marka qof kastoo ku jira waa qof fara laga hayo oo aan hadli karin soomaalida madaxdeedu saasay u badan yihiin qaar badan baa fara laga haya ninkii DP World laga eriyey iyo kay hadda keeneen labadaba fadeexaday ku jiraan kii laga eriyey waxaa loo eriyey fadeexadda 100 jeer oo horaan idiin sheegnay DP World dowladda iskale hadduu isagu leeyahay DP World ay company madax bannaan tahay dowladdu ma bedesheen resignation intay ka saarto isaga mid kale kuma ay bedesheen iyagaa iskale dowladda iskale waa mashruuc Mossad ay isticmaasho Epstein wax uu ka duwan yahay lama arko DP World Israa'iil baa maamusha iyadaa iskale lacagta ugu badan iyadaa gashata iyadaana maamulata oo rabta inay adduunkoo dhan ku qasto oo ku walaaqdo mashaariicda qarsoon bay ka mid yihiin waxaa ka mid ah Gates baa ka mid ah mashaariicda khariban oo Bill Gates magaciisa Gates Foundation oo beeraha iyo waxyaabaha la midka ah la geliyey marka iyaduna waa taas waxaa ka mid ah tallaalka vaccinationka waxaa ka mid ah waxaasoo dhan waa mashaariic iyagoo ay leeyihin DNA la ururinayo waxaas oo dhan COVID-19 dadka inta adduunkoo dhan la xiray dadkoo dhan markaa DNA-doodii gacanta lagu dhigay intoodii badnayd 90% dadka gacanta lagu hayo balaayoo dhan iyo shaydaan caabud iyo hoogiya baa ku jira aan dib ugu laabano dad waxaan arkay ka dacwoonaya heshiiska oo leh 95.5 marka dadkaasi waa dadkaas Epstein iyo Israa'iil iyo doofaarnimadii Soomaaliya lagu soo weeraray oo imaaraad loo soo maray tuubaraaca noocaas ahaa dad matalaya weeye dadka waxaa ka sheekeynaya Soomaaliya xataa hadday 5% hesho dhulka waxaada ku jiro ay ka qatan tahay what's the problem fiiri waxaa laga khaldayaa heshiiska mar horaan ka sheekeeyey production sharing agreement wey PSA gaas waa nooca ugu wanaagsan ee heshiis lagu galo hadda dunida casriga kow Soomaaliya waxay heshiiska ku gashay si ka fiican xataa Guyana oo waa dhaweyd la soo baxday oo 2022 loo qoday profit sharing koodu waa 50-50 Soomaaliya waa 60-40 60% Soomaaliya leh 40% na waxa iska leh Turkiga 90 marka xagee ka yimid 90 wuxuu ku qoran framework waxa ku qoran maadaama kharashka meesha galaya oo dhan gabi ahaanba ay Turkigu bixinayaan haddii wax laga waayana khasaaradaas gabi ahaanba ay Turkiga saaran tahay Soomaaliyana aysan waxba ku lahayn haddii wax laga helo waxa ugu horeeyo la helo waa in kharashkii laga bixiyaa galay meesha waa cadaalad markii kharashkii marka intee la ceshanayaa horta wax ma ka dhadhaminaynaa marka ugu horeysa ha imisaan ka dhadhaminaynaa 5% royalty ah inagu 5% horta annaga leh 95 meesha ka timi waa halkaa maxaa soo haray 95 taas up to 90% oo ka mid ah baa waxaa qaadan karta up to marka lagu ilaa 90% bay gaari kartaa laakiin waxay noqon kartaa 60 waxay noqon kartaa 70 waxay noqon kartaa 80 90 way noqon kartaa bay dib u ceshanayaan lacagahoodii kharashkoodii galay مثلا haddii 100,000 laga helo 5% oo ka mid ah inaga iskale 5,000 baan xaga dhiganaynaa waxaa soo haray 95,000 boqolkiiba 80 ama 90 ka mid ah oo ah oo noqonaysa ilaa 90 iyo xoogaa noqonaysa iyaga qaadanay inta soo harteen haddana waa qaybsanaynaa marka waxa laga yaabaa boqolkiiba 10 iyo wax ku dhow inaan helno canshuurta ma aqaan hadda ka hor baan sheegay taxation agreement buu la galay Xasan Sheikh 2016 Turkiga markaasaa layna ku dabaqi doonaa ma mid cusub baa jira kaama la kansalay weli ma taagan yahay waruma hayo haddii marka aan canshuurtana qayb ku helno wadamadu badanaa 5 6 7 10% canshuur ay qaataan Guyana oo kale 10% canshuur ay qaadanaysa marka 10% royalty wax yar bay ku bilowday 2% hadda royalty-geedii 10 buu marayay last year canshuurtuna 10 bay ahayd marka number weyn ba ku soo baxay markay dhamaato kharashkii meesha galay oo ay ceshadaan lacagtoodii kharashka ahayd waxa soo haray oo waxa la helo oo dhan boqolkii barmiil oo la helo 60 annaga leh 40 iyaga leh waa profitka marka laga jaro kharashkii oo dhan marka laga jaro royalty-ga canshuurta marka laga jaro inta soo hartay faa'iidada ah
baana waxaan u kala leenahay 60-40 wax la heli kara maaha waa mashruucii uu ka diiday allah u naxariistay maxamed siyaad barre uu maraykan ka diiday 1970skii early 70skii uu ka diiday intay dhaheen waxaan qaadanaynaa 90 baan qaadanaynaa idinkuna 10 qaata oo uu yiri may anaa iska leh 90ga anaa qaadanaya idinku 10ka qaata kadib la dooday la socday 60-40 marka ma xuma 70-30 baa ka fiicnaan lahaa laakiin 60-40 still waa heer sare 100 barmiil marka la helo baan 60 qaadanaynaa iyaguna 40 bay qaadanayaan haddii laguu soo saaray abaal laguu galay in lagaa faa'iido soo wax la garanaya maaha midda kale waa bloogyadaas wixii ka dambeeya iyagana heshiiska waa la bedeli karaa inkastoo frameworkii la ilaalinayo hadda aynu wada galnay ba isku soo duuduubo waa rajo iyo ufuq ama muuqaal fog oo muuqdo jihada qorax ka soo baxa ka muuqdo oo sharaf iyo karaamo iyo magaranaysaa horumar ah wax lagu farxo weeye dowladduna waa ku mahadsan tahay ciddii ka shaqaysay iyo cidda ka shaqayn doonta dhammaantood dacaayadda dadka wada oo 95 faafinaya xataa gaalaa ku jirta israa'iiliyiin baa ku jira lacag baa saa loogu soo intii ka xumayd soomaaliya inay ka kacdo dhulka oo dhan baa saa u qaylinaysa marka loo joojin maa horaa loo socaa intaasaan iyagana leeyahay waxaan arkay mid gabyaya oo gabayna ma oran kara buraanburaya wuxuu akhriyay lama yaqaan riyaal ma abwaanguura idiin qoraa waxa wax idiin qoraan garan waaye nimankaa reer waqooyiga waxyaabahan uga hari la-aannahay bay ka mid tahay raggaasaa lagu yaqaana aftahanimo iyo maanso iyo gabay raggaa noo qora dhah waxaanaad akhriyaysaanoo wada qusacbalaadka iska dahay ceeb bay idinku tahay waxaadan aqoon lama sidii qof akhriyaya qur-aan isagoo aan weligii qur-aan baran oo kale wey qofka qur-aan yaqaan wuu garanayaa qofkaan inuu ziiraya marka bahasha cayaarta ka daaya ma ujeedaa ceeb iyo fadeexad baa lagala kulmaa waxaadan aqoone iska dah faraha ka qaad intaasna waxaan leeyahay waa kaftan waa ragga buraanburayo hadba intay xaashi soo qaataan budhubadha qofka ku dhegaysanaya dad badan oo gabyaaya ku jire ka xishooda haddaa ka maarmi weydeen inaad gabaydaan dee rag gabay yaqaana waa buuxaan rag gabay yaqaana raasada oo noo qordhaha khayr badan baa idiin rajeynaya wabillahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu